adkeeyaan dhufays bay ku jiraan mudaharaadyo rabshado wata oo isu bedelay dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo shacabka magaalada Ceelifeyn ayaa ka dhacay magaalada Ceelifeyn shacabkan ayaa ka gadoosan dil shalay ka dhacay deegaanka qaloocato ee degmada Ceelifeyn dilkaas oo ay geysteen ciidanka birmadka ee halkaas nabadgelyada u jooga degmada Ceelifeyn ee gobolka Sanaag waxaana 24 saacadood u dambeeyay wali meedkii yaala isbitaalka degmada Ceelifeyn oo aan lahayn talaagad meedka lagu dhigo dhanka kale waxa mudaharaadayaashan gadoosani ku labisteen calanka buluuga ee dowladda federaalka Soomaaliya rabshadahan ayaa sababay dhaawac 5 askari oo ka tirsan ciidanka birmadka Soomaaliland har ruux oo dumara iyo sidoo kale taliyaha ciidanka militariga guutada 45aad taliya Saleebaan Saalax Madoobe dhanka kale maamulka magaalada Ceelifeyn oo wax ka weydiinay rabshadahan ayaa guud ahaanba ka gaabsaday arrintaasi madowga Yurub waxaan u sheegaynaa jamciyadaha qurumaha ka dhaxaysa waxaan u sheegaynaa ummadda waxaan u sheegaynaa yacni wixii islaamay shahaadanaya in sida kalluunka nala guranayo in ragayagii haldaarkayagii la laastay inay madax diideen bartaliya inta maxay taayeen barasaabka gobolka loo soo idmaday 4 nin buu ka marayaa biciida yaanis waxa weeye waa mid nala soo diray si degdeg ah hadaan la ka qabanna waanu iska qaban doonaa waxaan ka xumahay dilka shalay ka dhacay degmada Ceelifeyn ee uu horeeyo gacanta ku leeyahay barasaabku kow ka yahay ee uu ku jiro taliyaha birmadku maxay ahayd shalay maalin walba dadka kibirkaas lagu laaya sharci daradaas lagu soo dilaa in miskiin ah waxba geysan ayaa kibir lagu dilay waa ninkii lixaad sida lagu dilo dowladda Soomaaliland sharci darada dadka waa adeegsatay maalin walba dilayska dadka lagu laaya kii aan u dhimanay ee dadka iyagu soo koobeelay baan hoostiisa ku dulmanahay waxaan leenahay saacada musaandarab waxaan u sheegaynaa inay u tageen warkaanaan cidi maamulka Ceelifeyn ogeyn oo shaqo ku lahayn oo barasaabka dul taalo oo intuu noo yimi 4 marayo 4 sharci darro lagu dilay marayo intuu noo yimi isagay dul taal cidi lama ogeyn arrintaas shicibku ka kacay oo ummadda Ilaahay oo dhan ka kacday shalay nin rag buu ugu tagay aryahooda dhexdoodii aan wax samayn dagaal ma samayn dil ma samayn inta la baahsaday la soo googooyay isagoo buu hadeer araanka mayd yahay oo yaalay uu guri ku xidhan yahay oo sanduuq ku jira oo halka fadhiya oo aan cidi aasin oo cidi dhugan oo wixii dilay la soo sheegin oo aan cidi wali isku arag halka waxa weeye waxaana barasaabka ka dambeeya talaaga maydku ma taalo noloshu ku qurmay 3 xabadood baa ku dhacay ninkaas meel laga aaso iyo wax la aasaba ma aha 3 waa dhaawac tiray Idris Jaam Maxamed laanta afka Soomaaliga CBA degmada Ceelifeyn gobolka Sanaag واو اسبوع كيسو في عيسى صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa